laba ruuxoos jecelo leysku xantanahayle horta waa idin salaama akhyaare Soomaalida dhan waa laga seexan laaya qof walba wuxuu ku leeyahay waa isla weynta qisaan ku soo diray war qisada Soomaalida wada qisaan ku dhacday maxaa sameeya hadda waa kana Nairobi qabowga ka socdo ma dhishtaay kar waa soo labistay hadda waxa saan uu ugu soo kooxay isku diyaarinooya gabar Soomaaliyeed qisa ku dhacayna soo wariya raba midda kale rag yara qisa kuma wada dhicin dumarkii wada badan yihiin waa waray warwaalay macana birkataan kala qabso ani amal ma birkana wata la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waa isku dijiya laabta la gashtaa dhab waa iska seexdan hadda nabadii waa baxayna xafiiska aadeenaya adduunyadu laakiin kama filanay diban mare adduunyadu laakiin kama filanay lahawga caashaqa kama lanaanin laabtan kugu hay الله تعالى وبركاته ولبان هذا العالي وكم قاعدين لي على يوتيوب كداون يسنا ولي على توفشيا أصحابتي الخالق ورت أنا عندكم حسين وإذا جعلها سوى بقى لا سعتنا وإذا كريم هنعلنا يا كل قصين أدو بدن وادي صدرتين ونجعلها هنا هم رسول جود بيو لكن أودي بقى because أنا كل دي هاي إن شاء الله هذا تان قصة حاجة قبل سنوات تكون عادي وأيضا يصدرتين إن لو داعي وحرجينا إن الله سبحانه إن شاء الله وحنا ما قصدان إن لو داعو ولا شيء نصامالينا تلك السيسان وإذا لا ده وحنا ما هنعينا الله سبحانه وتعالى ويسوع تقلي قصة قلبي كدوبة وأن لو داعي ولا له هيك صاماليين ما جعلوا أسماء وحنكون ولا هاي مقدسة قال عند المدى هذا waxaan xiriir jecel wadaagno wiilaan isku galaasnaa waxaan wada soconay muddo hal sano ka dhima maalmo nolosheeda bilowgeeda iyo dhamaadkeeda aad baan iskugu faraxsanayn wuxuu isiyay farxad jacayl iyo naxariis kalgacayl nolosheeda waxa igu soo kordhay waa u sheegi jiray sidoo ila qaybsado markii aan arko wajigiisa farxad baan dareemi jiray iyo naxariis aan weligayba dareemin waxa uu ibaro jacaylka macaankiisa markii aan galaaska isku aragno waan wada sheekaysan jirnay وإيجا فرحين جري وحن بري فملكيجا أصحابتيجا سيدو كلامنا وحن حرير بلاوني بشي أفراد لما تكون سجاد يوتما وأهم جيجا كواد يوجري إنه النقطة المهيجا أبوه أما سوتش كيجا حال أقصد قيبي أنا كتابتي استعينك موجودين ميدا جبت واحد تاعي قبل أسي قروح بدن أسو هذا الشيء حريركو أسي قروح بدن أسو عدي والله واحد يعدون أنا جمهور because إلا هذا تبع قرآن مرجوري يعني آخرين عيو ميد الصومالي كم قام واحد هاي خفك حريق على الله هذا وعلى صعته وأجعشها إلهي كم أورن كلية أنا فرحت وداكتين وأصل سعتين أصل خصوصين وكنت جعلها أنا كهدر مرة خار عقمد ويسود حقلي ويسود حقلي إني إزدقال ويسود حقلي معنا إني إسفهم واللي ولا كرتب لكن مرة بهتو حريق إنك تحرق وحال معنا أدو ونكسة إن قفك كلا وكرونا ولكن الاسكو دولقات حرير اللي ليها دولقات ماشي دول كبخ محاور وطبانين ان شاء الله خير طلبان واسيد بقلينا بل ما حد يعطو هذا الصوت كي حلاش فرحد ادونك waxaan soo qaatay maanta balse maanta waxaan ahay qof qalbi jaban qofka jeclaa uu iga dheeraan bilaa sabab la'aan wuxuu iga fogaaday aniga u baahan waliba jecel asaay u qabo oo waalan karo waxa rabay inaan u dabaaldego hal sano xiriirka aan wada soconay balse nasiib darro way ii suurtagali weysay si walba aan uga dhaadhacsiin aan jeclahay balse wuxuu ii geystay aflagaado hadal xumo laakiin aniga waan u jawaabi waayay wuxuu ii geystay sababtoo ah waxaan ahay naf asaga jecel u baahan kana maarmin haysto waji aan waalidkayga iyo asxaabteeda ugu sharto waayo waxay dhihi jireen iska daa jacayl weli waad yartahay waxbarasho weli ma aadan dhammaynin balse ani ma raaci jirin hadalkooda kiis unbaa ii macaana waji aan fasalka ugu tago ma haysto waayo asxaabteedu way ogaayeen inaan la socdo wiilka oo aan isku galaasnahay asxaabteedu waji aan ugu tago ma haysto sababtoo ah gabdhaha cadow bay igu yihiin haddii ay maqlaan waa farxadooda wayna igu faafinayaan in wiilka jeclaa iga tegay jid cad markuu iga fogaaday waxaan dareemay inaan ahay ruux garab haysanin dunida baa igu yaraatay cudub nafsi baa i galay waxaan ahay ruux ka maarmin markuu igu soo dhacdo waan ilmeeyaa heer waxaan gaaray anigoo jiifo inaan ilmeeyo wallaahi adduunka baa igu yaraaday dhabtii markii aan arko asagoo dhoola caddaynayo waan farxadiisa waan jeclahay damiirkaygana waan sii waayay inaan dhammaystiro qisadii xanuunka badan ee nolosheeda ku dhacday intaa dadaal samayn karo waan sameeyey
balse rabbi waxaan ugu baryayaa in uu nafsigeyda uusan ka soo bixin aabbayaashayda Soomaaliyeed iyo awowyaashayda Soomaaliyeed inaad iska ilaalisaan nafsi ruux ku jecel oo aad ka gasho waan baryayaa ruux ku jecel qalbiga ha ka dhaawicin rajabeenna ha ku ridin wallahi aad bay ii xanuun badan tahay qofku jeclaa ha ku dhaawaco haddii aad haysato ruux ku jecel fadlan ha daayicin ay idin leedahay liban male adduunyadu laakiin kama filanay liban male adduunyadu laakiin kama filanay lahawga caashaqa kama lanaanin laabta